بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتان جعلهاي ميل البدونية تجوتين تسو دوادا قحوتيغا داب channel haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saartid like noo saartid noo sheegiray muuqaalkan dad badan inuu gaaro ayaa rabnaa insha Allah mawduucana maanta wuxuu ku saabsan yahay wararkii ugu muhiimsanaa boofista xeryaha qaxootiga dhaab iyo sidoo kale qaxootiga Kakuma iyo sidoo kale qaxootiyaha kale caalamka wararkooda u dambeeya waxyaabihii laga soo dhahay ama waxyaabihii u dambeeya akhbaartooda oo ku saabsan boofista aan ku bilaabo xeryaha qaxootiga dhaab aan ku bilaabo baryahan dambe inkastoo holiday lagu jiro fasaxyo yar gaaban lagu jiro waxyaabo iid iyo fasaxyo kale caadi lagu jiray hadda dib ayaa loo soo laabtay shaqooyinka dib ayaa loo bilaabay marka cases waxaa jireen loo yeeray GFA oo maanta khamiis taariikh 5 marayeen ilaa taariikh 6 mari doonaan sidoo kale waxaa loo yeeray cases cusub oo face to face ayaa loo yeeray marka dad waxaa jireen cases loo yeeray face to face waji cusub oo dad cusub loo yeeray cases cusub marka dad isku dhex jireen inkastoo baqta nasiib ay ahaayeen oo IOM ilaa qoladaas ay kala xaqiijin waxaan arkaynay dad minority waan arkaynay sidoo kale dad minority oo dhex jiray sidoo kale dad curyaamin dhex jiray waxaan sidoo kale aan aragnay cases dad oo xafiiska UNHCR imaaday oo intee loo wacay oo kaarti lambarkii qaban waayay buufiskii qaban waayay gadaal dambe tay wacay laba maalmood kadib qoladii ay dhaheen waxa la jiray waan ila baahnay laakiin nasiib darro waxa la jiray maadaama aad lambarka qaban wayseen haddana dhib mala markala nid soo wacay leh marka qoladii ay UNHCR imaadeen xafiiskoodii UN qolada waxay dhaadaan waxaan ka qaban karaa malahan qolada lambarkii nid soo wacay la kala xiriir marka bulshada walaaladeed waxaan u sheegnaa aan u baaqaynaa in mar walba telefoon lambarkooda u daarnaado telefoon lambarkaada waa inuu daarnaada mar walba ku soo celiya hadalkan bros qaxootiga hadda waxa loo joogaa waxbarasho iyo dibadabajin ayaa la joogaa bros wadankeena wili caqabadihii oo wili aan ka soo carnay ama caqabadihii bulshada ka soo carreen ilaa hadda meesan ka dhamaanay way ka jirtaa marka ilaahay wadankeena nabad ha noo dhigo noo xasilooniyo marka wadan isku haleynta ilaahay ha noo dhigo laakiin hadda insha Allah wili laakiin caalamku wuxuu aqoonsan yahay in Soomaaliya wili qaxootigooda oo caalamka joogan wili waa la tixgeliyaa processing-ka boofista iyo dibadajinta way helaan iyo xuquuqda badan ay helaan marka saas tahay marka dadka waxa la rabaa in fursadaha laga faa'iideysto sidoo kale xeryaha qaxootiga insha Allah muuqaal waan soo sameyn doonaa waxbarashada ayaa hoos u dhacday waxbarashada dhalinyarada hoos u dhacday insha Allah muuqaalada aan soo sameyn doonaa waxyaabahaas sabay iyo bulshada insha Allah waan wareys dheer ayaan sameyn doonaa insha Allah mid kale aan sameynayno waxa kamid ah in hadda boofista xeryaha qaxootiga dhaab hadda insha Allah isbedel badan ayaa la sameyn doonaa bilaha soo socdo caseska waa la tuurin doonaa COVID-19 oo cabsiga laga qabay hadda wuu naga yaraaday ilaahay saasa ku sii wado marka cabsi badan oo COVID-19 ma jirto wuu sii yaraanay wuu sii baaba'aya ilaahay ku sii wado marka caseska loo yeeray dadka waxaan u sheegayaa bulshadeena haddii falay sugayso haddii caafimaad sugayso haddii GFA sugayso haddii IN sugayso haddii hataa wiligaa lagu soo dhajirin oo tirtoobley aad tahay hataa lambarkaada ku shidnaado lambarkaada UNHCR ku shidnaado hadduu dad waxaa jira lambarkooda ka dhumay ama dad waxaa jiraan telefoon dad leeyahay u qoran dad waxaa jiraan oo qaxooti isla joogaan isla tawaalaysan oo lambar haysanin meel laga maro telefoon waxyaabahaas aan gareenin laakiin nasiib wanaag waxay qortaan lambarka dariskooda ay qortaan lambarka dariska badanaa waa iska mashquulisan lambaraha cusubna badanaa dadka ma qabtaan marka waxaa ku wanaagsan inaad telefoon tooshle aad gadatiin oo mar walba daarnaado waa 1500 lacag Kenya waa $15 waaye oo mar walba ku shidnaa telefoon tooshle isgata telefoon tooshlaha isgata lambarkaada ku qornaada ku jiro lambar cusub ku soo waca halow yaa tahay kuma tahay weydi haddii qof wax ku hayo yahay wata haddii qof wax ku haynahay waa uu ku jaraysaa laakiin waa inaa marka hore dhageysta qof wuxuu yahay laakiin dad waxaa jiraan Soomaalida badanaa dad waxaa jira iska shaki badan oo lambarada cusub aan ka qabanin lambar cusub wuxuu sheegaa lambar cusub ka qabti dad saas aaminsan jiraan lambar cusub wili aan kama qabaninbo dadka soo wacanay dadka lambar ka haysta bis noqdaan ma ahan qosab ma ahan qof aad ku baahnaa taa lambarka hay lambar cusub uu soo wici karaa oo lacag u jirto marka ma ahan inaad lambarada cusub aad ka cabsootiin lambarada cusub hal qabto boofista xoolo ayuu bilaaban doonaa intaas dad qaar su'aal soo weydiiyay dadka loo yeeri doono dadka cusub in minority miya in curyaamin miya ay dhahay maya wiilaa hadda UNHCR meeshay laakiin sida aan maqlaynay ama sida horaan ay sheegeen cases sida u kala daran yihiin minority case-toodu daran yahay priority leeyahay hadda qof curyaan u yahay case daran u yahay waa priority medical laakiin badanaa culays waxa saaran medical ayaa culays laa hadduu qof xanuunsan ku joogo oo medical waa inaad hay'adaha samafalka qaybta caafimaadka inaad dabadasho ayaa la rabaa insha Allah qaybtaas inaad dabadasho ayaa la rabaa dabadal aad u samaysid sidoo kale dadku waxaa la rabaa insha Allah dadka qaar waxaa jiraan caseski dadka GFA sidoo hore GFA isbedelo badan ayaa lagu sameeyay
applicationada waxyaabo badan ayaa updating lagu sameynaya hadda waan arday dad badan oo cabasho qorteen ayaa jiraan oo twistoodi qoladan GFA ama INS u dirtay ama Fly waxyaabo twistooda qornayn oo qolada u direen marka systemka updating ayaa lagu sameynaya qolada GFA iyo INS dhamaan iyo ay imtixaan updating lagu sameynaya twister hadii email adirsato bil ay taa maqnaanaysa halaasna taraal noqda dulqaadka la sameeyo insha Allah updating waxyaabo badan system lagu turinaya marka hal bil ay taa maqnaani jawaabta dib ayaa lagu soo diraa marka dad ayaa noocaas badan dadka oo twisistooda email la dirsadeen way la socdaan runtii way arkeen inay bil ka maqnaanayso jawaab bil ay taa maqnaan laakiin mid automatic ayaa jirta akhsu soo jawaabaysa mid soo ah in ay tahay COVID-19 iyo waxyaabo saameyntii corruption waxaas mid taales way laakiin mid saxda twistaada meeshuu marayo xaaladihiisa mid soo dambaysa dib ayaa u dhigeen bil ay taa maqnaan sidoo kale application oo process time meesha lagu fiirsanay twistaada wixii haystay waxyaabo lagu fiirsan jiray iidana aqabad ayaa jira hawada ayaa xun marka qolada markii la weydiiyo waxay dhaheen systemka ayaa update lagu sameynaya ciladahaas meesha ay ka yimaadeen markii update la sameeyo la hagaajiyo ayaa insha Allah wax walba automatic ay noqon doonaa marka insha Allah saas ay dhaheen marka dulqaad hala muujiyo dhaheen marka insha Allah bulshadana saas ayaan u sheegaynaa marka insha Allah marka waxaan ku celinayaa haddii aad ku cusub tahay qaxootiga Dab Channel fadlan waa markii ugu horeeyay haddii tahay noo saar subscribe like noo saar noo share dir muuqaalkan haddii horaan noo joogteen waad ku mahadsan tahay waxaan ka codsanayn like na sortin like fara badan ayaan rabnaa like waxyaabo badan ayay naga caawinaysaa muuqaaladeena badan like ku yeer yahay inta qof oo daawanayso inta like saarayso ayaa yar marka waxaa la rabaa inta qof hadii kun qofood ee daawato kun qofood in like saartaa la rabaa marka fadlan like noo saar like waa free waa bilaash anta like waxay noo taraysaa adi laakiin waxa uu kuma tarayso anta hadii noo saarto dhiirina noo tahay walaal waxaan ka codsanaynaa like noo saarto noo share direys muuqaalkan sidoo kale share direys dad badan gaarsiiyay kanaalkeena inuu horumar gaaro horumarkeena gacantaada ay ku jirtaa marka insha Allah adii la'aantaada horumar gaari karno walaal qaal oo ku mahadsantahay mar walba daawashada quruxsan daawanayso hadii muuqaalkan uu cusub yahay hadii horaan joogtay noo share